ku dhawaad 27,000 oo arday ayaa maanta soo gabagabeystay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe kaas oo ay maamulka gobolka Banaadir ay qaadaan 69 xarumood ay ardaydan ku galeen imtixaanaadka waxaana ardayda imtixaanaadku soo gabagaboobay qayb ka ah arday baahiyaha gaarka ah qaba agaasimka imtixaanka gobolka Banaadir Xuseen Sharaawi ayaa sheegay in ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ay ka qayb galeen imtixaanaadkan loo sameeyay wax kastoo imtixaanaadka ay ku gali kareen wuxuuna sidoo kale tilmaamay inay la mid ahaayeen ardaydii kale imtixaanaadka ku jiray maanta waxaan joognaa maalintii ugu dambeysay imtixaanka fasalka 8aad sanad dugsiyeedka 2021-2022 oo qaadayo agaasimka waxbarashada gobolka Banaadir waa sanadkii saddexaad oo imtixaanka dugsiga dhexe uu qaadayo si guul ah oo qurux badan ayayna nagu soo gabagabowday qaybta hadda aan joogno waa qaybta ardada baahiyaha gaarka ah qabta gaar ahaan ardada indhoolayaasha ah agaasimka waxbarashada gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka waxa uu u fududeeyay facilitieski ahaa inay ka qayb qaataan imtixaanka shahaadiga ah si ay dhiirigelin ugu noqoto oo maadaama intaas oo sano ay wax soo baranayeen dugsiga dhexana oo dhamaaday inay helaan dhiirigelin oo ay la mid noqdaan ardada kale ee caafimaadka qabta ama xubnahooda u dhameystiran yihiin taas markay isagoo ka duulay agaasinku wuxuu go'aansaday inuu ardadaas imtixaan ka qaado gaar ahaan baahiyahooda ku beeskareeyo oo looga qaado farta bareelka oo ay wax ku bartaan taasna waxay keenaysaa inay ardada kale la mid noqdaan ugu dambeyntii agaasimaha guud ee agaasimka waxbarashada gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay sida uu imtixaanaad ku soo gabagaboobay kormeerka ay ku hayeen inta uu imtixaanaadka socday imtixaankii shahaadiga ee dugsiga dhexe ee gobolka Banaadir uu noo dhamaaday waxa Ilaahay mahadiis ah inuu si noogu dhameeyay farxad leh oo aan ku guuleysanay dhamaadkiisii waxa kale oo halkan aan rabnaa inaan ka sheegno in ay ka qayb galeen ardayda gobolka Banaadir dugsiga dhexe 27299 arday ay ku jiraan arday baahiyo gaar ah leh iyo arday kale oo dadka waaweyn ah oo ayagana special aan ka dhignay waxa kale oo aan rabnaa inaan ka sheegno in ay ahaayeen tirada labka ah ee ka qayb gashay ay ahaayeen 15392 lab ah oo wiilal ah iyo 12907 dhadig ah waxa kale oo halkaan rabnaa inaan ka sheego in imtixaanka 4 bari uu noo socday uu ku dhamaaday si aan wax shaqaaqad iyo dib aan lahayn inuu noogu dhamaado sanadkii saddexaad ee maamulka gobolka Banaadir uu qaadayo imtixaanaadka dugsiga gobolka Banaadir waxaana la filayaa in sabtiga toddobaadka soo socda uu bilowdo imtixaanaadka fasalka 12aad ee dugsiga sare